Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ahaa Axmed madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Indonesia. Wuxuuna xilka madaxweynenimada qabtay kadib markii uu guul ku soo dhammaaday halgankii adkaa ee socday sanado badan, isla markaana lala galay gumeystihii Netherland ee sida arxanka daran u gumeysanayay shacabka Indonesia ee u badan muslimiinta. Intii uu Axmed ku jiray halganka xoreynta dalkiisa Indonesia, dhowr jeer ayuu ku dhacay gacanta cadowga, laakiin ma dilin ee waxay dhigeen jeelka. Axmedna wuxuu awooday inuu xabsiga ka baxo, aakhirkiina uu noqdo madaxweynihii koowaad ee dalkiisa Indonesia. Wuxuu dhashay Axmed 6 bishii Juun sanadkii 1901, wuxuuna ku dhashay isla markaana ku soo barbaaray magaalada Surabaya ee ka tirsan jasiiradda Java ee dalkiisa Indonesia. Asigoo cunug yar ah ayuu xifdiyey Qur'aanka Kariimka. Sidoo kale Axmed waxa uu suura gashay inuu si wanaagsan u barto afafka Ingiriiska, Dutchka iyo Faransiiska iyo luqadaha maxalliga ah ee inta badan aaggaasi looga hadla ee kala ah Baaliyaha, Sandaniya, Jaawiga iyo afka Indoneesiyaanka ee cusub. Dhanka kale wuxuu Axmed bartay cilmiga tumaalnimada, wuxuuna shahaado ka haystay tumaalnimada madaniga ah, laakiin wuxuu xirfad ka dhigtay siyaasadda oo wuxuu ka mid noqday siyaasiyiinta waddankiisa. Waxaana dhowr jeer xiray ciidankii gumeystaha Netherland kadib markii Axmed uu soo jeediyey in gumeystaha lala diriro. Dhanka kalena wuxuu dhallinyarada ku booriyey in ay hubka qaataan oo waddankooda ka xoreystaan gumeystaha. Qodbooyinkii Axmed uu shacabkiisa u soo jeediyey waxay sababeen in dadweynaha kacaan, dhanka kalena asigan Hollandeyska u taxaabaan jeelka. Wuxuu muddo 2 sano ah ku jiray xabsiga. Halgan ayuu ka sii dhaxwaday gudaha jeelka, taa uu gumeystihii Netherland ku qasabtay in Axmed ku xanibaan gudaha jasiiradda Sumatra una diidaan inuu tago jasiiradaha kale. Asigoo xalkaasi ku jira, Axmed ayaa waddankiisii waxaa xoog ku soo galay ciidankii imbaraatoriyadii Jabbaan, kuwa oo la dagaalamay ciidankii Hollandeyska ee waddanka gumeysanayay. Axmedna wuxuu helay xorriyad uu ku dhaqdhaqaaqi karo, isla markaana uu ku tagi karo jasiiraddii uu doono. Muddo yar kadibna xaalka waddanka waxaa ku dhacay isbeddel. Xaaladdana waxay noqotay kudka guur oo qanjo u guur, waayo waxaa isbeddelay 2 gumeyste. Holland ayaa tagtay, waxaa soo beddelay Jabbaanees oo ka sii arxan daran. Sidaas daraaddeed shacabkii Indonesia waxay ku qasbanaadeen in ay hubka qaataan si ay dalkooda ugu xoreystaan gumeystaha cusub ee Jabbaan. Aakhirkii waxaa u suura gashay dadweynihii Indonesia inay waddankooda ka saaraan ciidankii Jabbaan, waxaana Indoneesiyaanka u sahlay in ay waddankooda ka saaraan ciidanka Jabbaan. Jabbaaneeska oo aagag badan dagaal kaga furnaa, taa oo aakhirkii keentay in Jabbaan isdhiibto kadib markii lagu dhuftay atomic bomb. Markii Indoneesiyaanka ka xoroobeen Jabbaaneeska, haddana waxaa soo laba kacleeyey Hollandeyskii, kaa oo doonayey in ay gumeysigii arxanka darnaa ku celiyaan Indoneesiyaanka, laakiin dhammaan iskudayadaasi way fashilmeen. Shacabkii Indonesia waxay 17 bishii Agoosto sanadkii 1945 madaxweyne u doorteen Axmed Sukarno. wuxuuna xilka hayay Axmed min sanadkii la doortay ee 1945 ilaa sanadkii 1968. Hollandeyskana waxay ictiraafeen dowladda Indonesia 4 sano kadib doorashadii Axmed iyo madax bannaanidii dalka. wuxuuna aqoonsiga Hollandeyska ku beegnaa sanadkii 1949. waxaa soo baxay sanad kadib madaxtinimadii Axmed khilaaf u dhaxeeya Axmed iyo axsaabta Islaamka, gaar ahaan xisbiga Islaamiga ah ee lagu magacaabo Baashuumi. wuxuuna xisbigan diidanaa qaar ka mid ah siyaasadda uu ku dhaqmo madaxweyne Axmed. laakiin markii dambe mucaaradnimada xisbiga Islaamiga ah waxaa ku soo biiray axsaabta kale ee aan ahayn Islaamiyiinta. waxaana dhacday iskuday badan oo Axmed kursiga looga qaadayo, laakiin dhammaan iskudayadaasi way fashilmeen. wixii intaa ka dambeeyey, Axmed wuxuu bilaabay inuu ammaankiisa gaarka ah aad u ilaaliyo, iskuna wareejiyo ciidan xoog badan. dhanka kale, Axmed inta uu ku jiray siyaasadda wuxuu dalkiisa u suurageliyey inuu helo madax bannaani kaamil ah. wuxuu kaloo isku dayay inuu isku dheelitiro dalka. sidaas daraaddeed wuxuu dhisay ciidan waddanka difaaci kara, dhaqaalahana xoogaa kor ayuu u soo qaaday. wuxuuna raacay nidaam siyaasadeed oo dabacsan. wuxuuna sanadkii 1955 madaxda ilaa 29 dal oo Afrikaan iyo Aasiyaan isugu jira ugu yeeray shir wadatashi ah. waxaana ka mid ahaa madaxdii soo xaadirtay shirkaasi oo cilaamiyey Axmed madaxweynaha dalka Masar Jamaal Cabdinaasir, kan Shiinaha Shawayn Laymin iyo midka Hindiya Jawahir Lal. waxaana shirkan lagu aasaasay urur dhexdhexaad ka ahaa quwadihii markaasi caalamka isku haystay oo ay kala hogaaminayeen Maraykanka iyo Ruushka. inkastoo Axmed noqday siyaasi culus oo miisaan xoog leh ku leh koonfurta bari Aasiya, laakiin haddana wuxuu awoodi waayey inuu dhaqaalaha dalkiisa wax badan ka qabto. sidaas daraaddeed waxaa fursadani ka faa'iidaystay cadowga Indonesia. waxaana sanadkii 1965 koox Shuuciyiin ah abaabuleen inqilaab military. intii uu socday iskudayga afgambiga waxaa dalka ka dhacay xadgudubyo badan, laakiin aakhirkii waxaa inqilaabka fashiliyey
jenaraal Suharto. xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa xumaaday xaaladda caafimaad ee madaxweyne Axmed, wuxuuna madaxweynaha soo saaray sanadkii 1967 qaraar uu ku magacaabayo jenaraal Suharto inuu noqdo wakiilka madaxweynaha. sanad kadib oo ku beegnaa sanadkii 1968 waxaa Suharto loo doortay madaxweynaha rasmiga ah ee Indonesia. dhanka kale Axmed xaaladiisa caafimaad way ka sii dartay, wuxuuna aakhirkii geeriyooday sanadkii 1970 waxayna da'diisa ahayd markii uu dhimanayay 69 sano jir.